السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي صبح ونكسن ويلكستو الدنيا كتشوكتان كنا سودوادا وربحنادي وركي ودنبيي عيارها صاحبيال maamulka Manchester United oo shirkadda ka yeeshay laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo ayaan saaxiibayaal diiradda saari doonaa. haddii ay tahay saaxiibka cusub barteenan fadlan ugu soo biir, waa ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga. maamulka kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa shir degdeg ka yeelan doona Cristiano Ronaldo maanta kadib markii laacibkan wareysi uu siiyay Margon uu eedeyn badan u jeediyay kooxda iyo maamulkeedaba uu ku tilmaamay mid aan waxba kala garanayn. waxa uuna weerar kale ku qaaday tababaraha hadda jooga kooxda Manchester United ee Ten Hag. xiddiga reer Portugal ee 37 jirka ah ayaa waxa uu sheegay in aynu wax kalsooni iyo ixtiraam u haynin tababaraha Ten Hag. sidoo kalena waxa uu weeraray tababarihii hore ee Rangnick oo uu sheegay in isagoo aan tababare ahayn Manchester United ka dhigatay tababare, halka saaxiibkiisii hore ee Wayne Rooney uu isagana ku tilmaamay mid ka xun in uu weli heerka ugu sarreeya u soo ciyaarayo, taasna uu ka xun yahay. kadib hadalkan waxa uu muujinayaa in mustaqbalka Cristiano Ronaldo ee Old Trafford uu soo dhammaaday maadaama kooxdiisii uu ka tilmaamay in ay khiyaantay, waxaana isla maantana kulan la isugu yeerayo maamulka sare ee Manchester United uu ku jiro tababaraha Ten Hag ay ka fariisan doonaan in talada laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo oo fadeexad weyn u geystay maamulka sare iyo kooxda kubadda cagta Manchester United. waqtiga ka mid ah wargeysyada ka baxa magaalada Manchester ayaa ka soo waramaya in maamulka sare ee kooxda ay yeelan doonaan shir oo ay go'aamo kaga gaarayaan laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo, waxayna wararka hordhaca sheegayaan in dhowr ciqaabood oo kala duwan ay isugu jiraan doonaan go'aamo laga gaaray sida mushaarka oo laga jiri doono iyo kooxda koobaad ee laga saari doono laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo, waxaana uu dib ugu soo laaban doonaa xirada tababarka ee Manchester December dhamaadkeeda. saaxiibayaal, wararkii ku saabsanaa subaxnimo laacibka Cristiano Ronaldo iyo khilaafka weyn ee soo kala dhex galay kooxdiisa Manchester United oo ku sheegay mid ixtiraam darro ah, waxa uu kala weerar ku qaaday laacibkii ay soo garab ciyaareen ee reer England ee laacibka lagu magacaabo Wayne Rooney. saaxiibayaal, saxaabtay nabadgelyo saaxiibayaal.